madaxweynaha Jamhuuriyadda Federaalka Soomaaliya Farmaajo ayaa si weyn u hor istaagay damicii Rooble iyo mucaaradka. Maxamed Cabdullaahi Farmaajo madaxweynaha Soomaaliya ayaa markan dabarjab weyn oo siyaasadeed ku sameeyay xubnaha mucaaradka iyo Rooble kadib qorshe siyaasadeed oo aan loo meeldayn oo la damacsanaayeen dowladnimada curdunka ah ee dalkeena Soomaaliya. Rooble iyo mucaaradka ayaa qorsheeyay in dalka laga ciriyo Francisco Madera oo ah wakiilka midowga Afrika u fadhiya magaalada Muqdisho, taas oo si weyn uga soo horjeestay madaxweyne Farmaajo. ugu dambeynna midowga Afrika ay soo dhaweeyeen go'aanka Farmaajo ee ku aadan in dalka uu sii joogo Ambassador Francisco Madera. Arrintan ayaa dadka wax tahliliya waxa ay qabaan inay tahay guul weyn oo siyaasadda dhanka diblomaasiyadda ah oo gaaray madaxweynaha Jamhuuriyadda Federaalka Soomaaliya mudane Maxamed Cabdullaahi Farmaajo, isla markaana lagu hor istaagay damicii iyo qorshihii mucaaradka ka lahaayeen carqaladeynta nidaamka socodka dalkan Soomaaliya iyo diblomaasiyadda Soomaaliya oo soo hanqaadaysay 5 sano ee madaxweyne Farmaajo. fagaarayaasha caalamkana si weyn looga dareemay. Farmaajo ayaa si weyn u bogaadiyay hawsha qarankan iyo dalkan uu ka hayo Francisco Madera, wuxuuna sheegay inaysan waxba ka jirin warqadii la soo saaray dalka looga eriyay, taas beddelkeedana midowga Afrika ay soo dhaweeyeen in dalka uu sii joogo Madera. Mucaaradka iyo Rooble ayaa hadda qorsheynaya tallaabo xigto oo ay qaadayaan taasi oo la xiriirta inay rabaan inay isku xiraan arrimaha doorashooyinka iyo kiiska Francisco Madera. hase yeeshee madaxweyne Farmaajo oo heesa taageero weyn oo dhanka shacabka ayaa aaminsan in isdaygaas uu suurtageli doonin, isla markaana mucaaradka iyo Rooble qorshahooda uusan hirgeli doonin. sidoo kale madaxweyne Farmaajo ayaa hadda heesa guul weyn oo dhanka diblomaasiyadda ah oo ku naaloonayo maalmahan, isla markaana ay uga degayaan xasradaha siyaasadeed ee uga imaanaya Rooble iyo Farmaajo. Dharbaaxo weyn iyo wajigabax ayaa ku dhacday tiimkii mucaaradka ee u midoobay duminta dowladnimada Soomaaliya ee soo hanqaaday 5 sano ee la soo dhaafay, fagaarayaasha caalamkana si weyn uga soo muuqatay. sidoo kale warqad uu soo saaray wasiirka amniga ayaa jirta oo la sheegay in dalka uu soo gali karin Francisco Madera, si yeeshee warqadaas ma dhaqan galayso maadaama madaxweynihii Jamhuuriyadda Federaalka Soomaaliya uu qaadacay tallaabada uu qaaday Rooble oo uusan sharci awood u lahayn, isla markaana uu dalbaday in dalka uu sii joogo Francisco Madera. howlaha howlgelinta ciidanka AMISOMna halkiisa uu ka sii wado. Farmaajo markan guulay ku naaloonaya mucaaradkiina derbiyada ay markan qaylinayaan oo waxay awoodooda ku soo ururtay oo kaliya baraha bulshada iyo Facebooka oo ay si weyn ugu dhaleeceynayaan Madera iyo Maxamed Cabdullaahi Farmaajo. dhinaca kalena daawade Cali Yara Cali ayaa weerar culus ku qaaday wasiirka 30 jirka ee Sodonka Milyan Cabdullaahi Maxamed Nuur oo warqad u muuqatay inay tahay mid aan taxadar badan iyo sidoo kale mas'uuliyad aysan ku dhehnayn uu soo saaray markii midowga Afrika ay diideen in dalka laga saaro Francisco Madera. Cali Yara Cali ayaa u sheegay wasiirka amniga Soomaaliya ee Rooble u magacaawday in uusan ahaynba wasiir shaqeeya oo aan amar siin dhammaanba saraakiisha taliyaasha ciidamada booliiska Soomaaliya oo isagu awood ahaan ay hoos tagaan, balse weli awoodii ciidanka gacanta aan loo gelin. sidoo kale Cali Yara Cali ayaa ku maadeysay wasiir Cabdullaahi Maxamed Nuur 30 jirka 30 milyan kasta, isagoona sheegay inuu yahay nin taladii ay dhaaftay oo aan garanaynba halka siyaasaddu ay u socoto. waxa uu ku eedeeyay inuu yahay qaran dumis, isla markaana Soomaaliya meel dheer ka sii ridaya haddii aan dalkan iyo dowladda laga qaban, sida uu sheegay Cali Yara wasiir Cabdullaahi Maxamed Nuur. Cali Yara Cali oo kamid ah dadka sida weyn u daafaca madaxweyne Farmaajo ayaa si weyn u bogaadiyay go'aanka midowga Afrika iyo tallaabadii hore u qaaday madaxweynaha ummadda Soomaaliyeed Maxamed Cabdullaahi Farmaajo. isku soo wada duuba xaalku wuxuu muuqdaa markan in mucaarad iyo muxaafadba dhan kale uu jawaabayo, isla markaana hadda guusha ay ku naaloonayaan tiimka nabad iyo nolol iyo taageerayaashooda oo si weyn baraha bulshada ugu jeexaya in Farmaajo uu weli yahay madaxweynaha ummadda Soomaaliyeed ilaa doorasho ka dhaceysana isaga awoodiisa oo dowladda ay ku soconayso. hadda ay yaqiinsadeen mucaaradka in tala farahooda ay ka baxday, isla markaana iska daa shacabkii Soomaaliyeed xitaa aysan helin beeshii caalamka oo gabi ahaantoodba ay la safan yihiin Maxamed Cabdullaahi Farmaajo. qaarkoodna si cad u diideen in ay la shaqeeyaan Rooble iyo mucaaradka ay warkaa inay yihiin kuwa hortaagan dowladnimada Soomaaliya inay hana qaado, iyagoo si cadna u sheegay in tallaabadaas ay tahay mid lagu marhaabinayo dowladnimada Soomaaliya. Cali Yara Calina wuxuu u muuqdaa markan inuu ka guuleystay wasiirka amniga Soomaaliya oo fashil iyo filan waa dhexda ka taagan. hadda markan aan eegno xiisadda doorashooyinka Soomaaliya oo meel xun gaartay iyo xaalka oo markan ka sii daraya. guddiga doorashooyinka heer federaal ee Rooble u afduuban ayaa markan waxa ay qaadayaan tallaabooyin u muuqda in mar kale ay carqaladeynayaan dadaalada nabadeed ee ka socda Baydhabo iyo xalka lagu raadinayo in xildhibaanada Koonfur Galbeed aan la dulmin. sidoo kale waxaa jira qorshe ay wataan guddiga doorashooyinkii Rooble la xiriirta
in 14 bishan la dhaariyay xildhibaanada labada aqal ee baarlamaanka Soomaaliya hase yeeshee waxa subaxay warar kale oo sheegaya intaas aysan dhici doonin. sidoo kale waxaa jirta iyadana in guddiga doorashooyinka hadda ku milmay siyaasadda sidan ee dalkan aadna ugu dhawaaday xafiiska Roble ay waxa ay doonaan ay sameynayaan. guddiga doorashooyinka ayaa sidoo kale waxa ay shaaciyeen liiska tirada xildhibaanada ilaa iyo hadda baranku 10aad ee Soomaaliya shahaadada qaadatay iyadoo weli aan gacanta lagu haynin xildhibaanadii koonfur galbeed Soomaaliya ku matalayay dowladda federaalka Soomaaliya. xaalka ayaa hadda isbedelaya xiisad doorashada iyo khilaafkana wuxuu gaaray meeshii ugu xumayd abid waxaana arrintan si weyn uga shaqeeyay Roble iyo mucaaradka oo dana gaara ka dhex arkaya jiditaankii daahinta doorashooyinka Soomaaliya. hase yeeshee madaxweynaha Galmudug oo xal nabadeed u jooga magaalada Baydhabo ayaa wacad ku maray in aysan dhici doonin in la dulmiyo maamul goboleed maadaama doorashada si isku mid ah ay ugu wada dhacday guud ahaan dalkan Soomaaliya. ugu dambeyntiina ciidanka xoogga dalka Soomaaliyeed ayaa bilaabay diyaar garowga 12 bishan Abriil oo ah maalinta la aasaasay ciidanka xoogga dalka Soomaaliyeed iyagoo u dabaaldegi doona 62 sano guridii ka soo wareegatay markii la aasaasay ciidanka xoogga dalka Soomaaliya oo sanadihii ugu dambeeyay dib u dhis weyn uu ku sameeyay madaxweynaha jamhuuriyadda Maxamed Cabdullaahi Farmaajo. baraha xiriirka bulshada ayaa si weyn loogu arkayaa dhoolatuska ciidanka xoogga diyaar garowga ay wadaan iyo maalintan oo foodan ugu soo heesama qor ay ka harsan yihiin oo si weyn loo soo dhaweynayo dadkuna ay sugi la yihiin. 12 Abriil oo mucaaradka qaarkood ay siyaasadeeyeen ayaa hadda waxaa si weyn looga dareemayaa Muqdisho iyo guud ahaan dalkan Soomaaliya u diyaar garowga maalintan gaarka ah ee ciidamada qalabka sida gaar ahaan ciidanka xoogga Soomaaliyeed oo har iyo habeen ummadda Soomaaliyeed ay ku sixdaan amniga ay xaqiijinayaan. wasaaradda gaashaandhigga ee Soomaaliya iyo xafiiska taliska ciidanka xoogga dalka Soomaaliyeed ee Odawa uu hogaamiyo ayaa qabanqaabadan si weyn xoogeeda uga socda waxaana hadda la diyaarinayaa meelihii lagu soo bandhigi lahaa ciidamada xoogga dalka dhooltusada ay sameyn lahaayeen gaadiidka ay heesaan ciidanka awoodda militariga Soomaaliya iyo sida ay ugu heelan yihiin difaaca qarankan gudaha iyo dibaddaba in laga ilaaliyo cadowga Soomaaliya ku hareereysan oo dadka Soomaaliyeed qaarkoodba oo diiri dubna la wadaaga ay ugu horeeyaan. taliyada Yuusuf Raage ayaa sidoo kale qorsheynaya in la dalacsiiyo ku dhawaad 50 dhalinyaro ah oo saraakiil da'yar ah kuwaas oo qarankan waqtigooda iyo dhigooda u horeeya ahna jiilka ciidamada qaranka Soomaaliya hoggaanka u qaban doona sanado kadib. Odawa Yuusuf Raage oo si dhow xiriir u leh madaxweyne Farmaajo ayaa arrintan si weyn uga shaqeynaya sida xogta la helay ay muujinayso. madaxweynaha ummadda Soomaaliyeed Farmaajo ayaa la filayaa inuu ka qayb galo dabaaldegan isla markaana bilado iyo abaalmarino kale uu guddoonsiiyo geesiyaasha qaranka ee har iyo habeen u taagan badbaadinta iyo samata bixinta dowladnimada dalkan Soomaaliya. Farmaajo waxaa si weyn loogu amaanaa looguna bogaadinayaa dib u dhiskii tayeynta uu ku sameeyay ciidamada qalabka sida ee Soomaaliya oo hadda ay la og yahay tiradooda askari kasta nambarkiisa iyo diiwaankiisa la hayo taas oo ah guul weyn oo dhanka ciidamada iyo dowladnimada Soomaaliya ay ku talaabsatay intii xukunka dalkan uu gacanta ku hayay mudane Maxamed Cabdullaahi Maxamed Farmaajo. guudaan saaxiibayaal naginta wararkii ugu dambeeyay ee xaaladda Soomaaliya tan iyo kulan dambe nabad geliyo.